xaflad ku saabsan in ehelkayga helay inaan shacabka Soomaaliyeed meel allaale meejoon la wadaago inaan doon hadii ay ka dhaw baadi goobkan ugu jirnay Yusuf iyo waliba ehelkiisi sida isku baadi goob lahaa iyo sida isku hiri lahaayeen ilaa hadda waxa soo sheegtay ilaa 22 qoys baa soo sheegtay warays laga qaaday markale Yusuf caawa ayaa waxa uu ku sheegay arrimo badan meesha ay wax marayaan ayuu mataqaana ka hadlay sidoo kale Yusuf qof aan ehel iyo qaraabi aqriba hadda aan haysan laakiin hadda baadi goobkooda lagu jiro waxaa loo baahday in dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay soo caawiyaan nambarada shaashada ka muuqda ee cable ay tabisayna waa nambarada si ay mataqaana loogu hagaajiyo bal marka hore waxay la daawataan Yusuf oo ka hadlayo dadka soo sheegtay tiradooda iyo waliba qaabka loo waajihi doono bal marka hore la fiirsado wallahi horta dadka aad iyo aad ay soo hadleen waa la diiwaan geliyay maxamed baa gacanta buuga ku haya dadkaas way soo hadashaa 21 qoys 21 ma raacayo hal qoys ma ka raac doona hadii ay ka dhigo waayahay aad iyo aad baad u mahadsantahay fariinta ugu dirayso shacabka guud ahaan meel kasta dunida ka jooga shacabkan fariintan dirsanay waxa weeyaan mar hore baan dirsaday haddana waan ka daba geenayaa tii baan diraato kale ma aha yani waxaan ahay nin markii hore meel cidla ku tagay haddana waxaan la joogaa dal nabad ah oo aad iyo aad fiican muddo joogto ay fiyowdahay halka maanta aan joogo halka reerkayaan ku reedsan lahaa haddii 50 sano aan joogo hataa waxba uma arkahayo hurdi raaxa laba seexda waa fiyowdahay waxaan codsanayaa inaan baan dhalay iga dambayso aabihii dhalay waa aniga lacagna uma haysto gurina uma haysto mar horena waan sheegay waxaan leeyahay dad inay si toos ah ii garab istaagaan maalintan maalin ka daran oo liis garab istaago ma laha waa hagaag daawadayaal kaasi waxa uu ahaa Yusuf oo ahaa 30 jirkii aanu dhawaan idin la wadaagnay qisadiisa isla markaana ay soo sheegteen qoysas tiro badan waxaan rajaynaynaa Yusuf inuu qoyskiisii helo oo Ilaahay u soo dhaweeyo sidoo kale walaalaha muxsiniinta ee codsanayay in Yusuf telefoonno loo sameeyo si loo caawiyana waxaan leenahay caawaba waa loo soo sameeyay cidii caawin karta ha soo caawiso meel kasta ay ka joogaan okay hadii taa ka soo laabano sheekada wiilkan Yusuf baraha bulshada si weyn ay mataqaana iyo haysata markaan saas aan leeyahay maanta lafteeda waa jeer waxaan tabinay hooyo foos oo soo sheegatay astaan badan la sheegtay oo wiilkan mataqaana inta badan hadda aan ognahayba xaalkiis meesha uu marayo iyo dadka soo sheeganayaba inta uu la hadlay wareysi asaga mataqaana waxa wareysi inta badan murugadiisa iyo walbaarkiisa wato waayo markii hooyada ay hadlaysay isweysanayeen waxa dadka dareenkooda aad soo jiitay wuxuu yiri hadda xageed ku sugan tahay Jarmalka aniga ciyaal shan ah markaas wuxuu yiri marka aad bixiseen aniga xageed igaga tagteen aniga xageed igaga tagteen waa su'aal isweydiin mudan xaqiiqatan marka hooyadii matana waa murar dilaacday waa oysay horta dadka Soomaaliyeed inta badan dad baa ka maqan dad badan la baafiyay iyo kuwa si kale ku maqan way jiraan waana waxa jirtay dhacdo anaga soo martay oo aad aan ula yaabnay wiil baa noo yimid iyo wiil adeeg oo 20 jir adiga oo hayana saaxiibana hayba hadda waa dadka Soomaaliyeed iyo walaalkii oo asna matala maqan bay raadinayeen laba waxay leeyahay 20 sano ku dhawaad ama 15 sano miya waxaan raadinaynay baad goor ugu jirnay nin isagoo mataqaana South Africa tahriib u ah oo Tanzania u marayo la waayay ilaa hadda meel lagu sheegana maraha markii ma inoo baafiyo hadii dadka hadii dhulka Soomaaliya uu joogi lahaa waxbay noqon lahayd bogta laakiin nin doorka aragtay ee mataqaana Zambia iyo Malawi iyo Zimbabwe iyo Tanzania dhulkan mataqaana Afrikadan ku dhumay baahinteedu way iska adkeen saas ay tahay waan baahinay marka wiish way hadleen way ka sheekay taariikhdii inta magaciisa sawirkiisa mataqaana waa kan oo mar hore aha laakiin ninka aan baafinayna marka ayada ah kama uusan bixin Kenya lafteedu ku sugan Nairobi ka adeegtaada laakiin maskaxda ma isdaaw martay miyaa la sixray ninkii waxa laga masaxayba inay wax ehel iyo qaraabi aqrabi ka dambeeyay ba laga masaxay
yaalkiisina waa dhowr iyo toban jira oo weyn yaa jooga waa ilaa niman markii muuqaalkii daawaday laakiin ninkii garanayay yaa ninkii soo qabta oo yiri nin soo hebel ma ah ninka la sheegay ha bal ninkii soo qabta ninkii baa la keenay wiilasha loo keenay isku duubaan oo hin baroor baa ka dhacday ninkii markaa waa la qaaday reerkii ayaa la geeyay markii uu ninka miyirsaday bay dadkii ka dambeeyeen marka waxaan u malaynay markii qaab sixir ah in markaa uu jiray way dhici kartaa lafteeda marka dad badanna waxaa weeyaba hadda Soomaaliya inta badan waxay sameeyaan oo meelo badan oo naqaano dhulka nabadgelyada ka dhacda meelaha kuleejada ama mataqaanay ilmaha lagu xanaaneeyo la geeyo agoonta inta badan agoonta lagu xareeyaa waa boardingka waxa ilmaha agoonta loogu talagalay laakiin ilma aabahood iyo hooyadood jooga laakiin danyar ah yaa haddana mataqaanay ilmihii sii qaadaan bay boardingka geeyaan ku xareeyaan haddii meesha iyadoo waddanka qab ay ka dhacdo maanta loo kala yaaco ilmihi xaggee u aadi meel u aadi maaha waa un dadka yaaceen buu dhanka raacay kii weyn qoris buu dhagta qabsan marka Soomaaliya iyadoo nabadgelyo ah oo kuleejada ay shaqeynayaan oo boodhimaha ay jiraan oo qayb xanaanada carruurta mataqaanay ay jirtay oo kii agoon ahaa iyo kii kale halka la geeyay dowladda mataqaanay gacanta loo gelinayo yaa la kala yaaca ilmi meel loo dooni ma hada fiiri wiilka ma ku soo hada ilaahay maanta 22 maanta waxaan sheegay waxay 15 marayeen haddana 22 ay sii marayaan dadka soo wacanayo oo waliba la qaarkood diyaar ma nahay in loo qaado intaan DNA laga qaado waxaad garan kartaa marka waxaan gaaray dhibaatada gaartay burburka uu noo geystay iyo dawladda xumada dawladda aanta iyo mataqaanay qayb iyo ka ilaaqta ayada marka wiilkan hadda waxaan sugaynaa marka in DNA la qaado oo dadkaas farada badan ee soo sheegtay in mataqaanay DNA loo qaado kadibna ehelkii uu ka dhashay inuu heli doono insha Allah laakiin waxa la codsaday ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan Yusuf maanta waxa weey ninka wax la haysan ehel iyo qaraabo iyo wax maanta gacan ku haya male أولاد بنسوق أو شن أو كذا بيو أو هذا قاعد مثلاً يقول قاعد كان بحكيرين أو أباهم إن لقى رقبته مركا وهي أصلاً ما قاعد تقول هي رئيس مالنا إن ويلك يجا سجا داري ديود إتكس ما كسر إيجوبته وهي أودان إيوه جاي جات تلفون مثلاً عشان شاتك موجودة أو دران إذا لا حلشوا إذا عاونسوا هالك مثلاً يكلا حريرون أول صمت ما نقول رسي ولو ديني سو كشكي وحي ما كان ماضي وحالي ضمين كان هذا بانتا تكو هذا شو ضمين كان أنا وحي أنا بالضمين دون ذا كي سليم كيري يبقى دون ذا كجوجا حاجات ضمين كيري مركا هذا اللي كمان توي وقاعد مركا أكل حالة سمش المرة سنين كمان كيري إنه يهاي دون كتان هذا هذا الهاي يو وقاعدين أو اللوس وفريم سين كاركي هذا ما تناقش يعني فما سنت داول وحوي إن شاء الله قصة قرآن تناقش كل هذا يدونا مقالكن لو ولا يستحق